halkaad naga dhegaysanaysaana dhegaystayaal waa VOA Washington. Sida aad warkaba ku maqlayseen, qaraxyo xoogan iyo weeraro ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerareen hoteelka Dayax oo ku yaala inta u dhaxaysa isgoysyada Dabka iyo Sayidka. Ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay weeraradan iyo dadkii weerarka soo qaaday. Warbixintan Muqdisho waxaa nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste. weerarka hore ayaa ku bilowday gaari dhayna ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo lagu dhuftay albaabka hore ee hoteelka, waxaana jirta rasaas toos ah oo dhex martay ilaalada hoteelka iyo kooxdii weerarka soo qaaday, sida uu tilmaamayo wasiirka amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay goobta uu qaraxu ka dhacay. laba baabuur ayay ahaayeen. baabuurka koobaad wuxuu ahaa baabuur dhayna ah oo dhuxul waday. albaabka hoteelka ayuu soo galay, lagu soo qarxiyey. waxaa jiray asagana sidaa mid lamida baabuur nooha ah oo ay saarnaayeen ilaa 4 qofood. isku daya hoteelka inay gudaha soo galeen, laakiin ay u suurtoobi weysay inay soo galaan. intaas kadibna guri hoteelka gadaashiisa ah galay. ciidamada amniga waxaa kaga dhintay 3 qofood, nin booliis ah iyo 2 ciidamada niisa ah. ayagana waxay ahaayeen dad mujaahidiin ah oo ilaahay dartiis u dhintay. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu jannatul firdaws uu geeyo. waxaa kaloo ka dhaawacmay ciidamada amniga 5 qofood oo ciidamada niisa ah iyo 3 qofood oo ciidanka booliiska ah. sidaas si la mid ah shacabka waa la socotaan baabuurkii markuu soo galay qaraxa waday, qaraxa albaabka oo hoteelka bannaankiisa laamiga Makal Mukarrama maqaayad ku taallay iyo dhaawac dad shacab ay joogeen, dhaawac buu u geystay. ilaa ay hadda inta aan hayno oo aan isbitaalladii ay noo soo gudbiyeen waa 10 qofood oo dhimasho ah. dhaawaca labada hosbitaal ee Madiina iyo Daarushifa la geeyey marka la isku darana waa 51 qofood oo dhaawaca. wasiirka amniga ayaa sidoo kale sheegay in 4 ka mid ah raggii weerarka soo qaaday lagu dilay dibadda hoteelka, waxaana uu xusay inay ku hungoobeen inay gudaha u galaan hoteelka. hoteelka ma aysan soo gelin, laakiin bannaanka hoteelka gadaashiisa guryo ah ku dhuumaalaysanayay sida ay u dilaan oo ahaa 4 qofood. shabaabka la dilay waa 4 qofood. waxaan aad uga xumahay runtii wiilashaas yaryar oo shabaabka ah oo meesha lagu dilay inay ahaayeen wiilal aad u da'yar. da'dooda lagu qiyaasay 16 ilaa 20 jir wax ka yar. waa wiilal Soomaaliyeed la marin habaabiyey. dadka ku dhaawacmay qaraxyada maanta ka dhacay afaafka hore ee hotel Dayax ayaa waxaa ka mid ah 6 wariye oo ka kala socday warbaahinta gudaha iyo dibadda oo goobta u tagay si ay dhacdada u tabiyaan. waxaana wariyaasha dhaawacmay ka mid ah Maxamed Cabdiwahaab oo ka tirsan wakaaladda wararka AFP, Faarax Cabdulaahi Warsame oo isna ka socday wakaaladda wararka Associated Press, Cabdulqaadir Gacal oo ka howlgala telefishinka Home Cable, Cabdiqadar Cabdulaahi Maxamed oo ka socday idaacadda Kulmiye, iyo wariye ka tirsan telefishinka Al Arabiya. qaraxan ayaa noqonaya qaraxii labaad ee ugu saameynta ballaarnaa ee bishan gudaheeda ka dhaca magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho. dhinaca kalena wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa goobta uu qaraxu ka dhacay gaaray. warbixintan ayuuna nooga soo diray. halkan waa albaabka hore hoteelka Dayax oo saakay weerar loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ay ku qaadeen ururka Al-Shabaab. waxaana gudaha hoteelka u galay maleeshiyaad ka tirsan ururka oo gudaha ay isku risaaseeyeen ilaalada hoteelka iyo kooxdii gudaha u gashay. waxaar kadibna qarax labaad ayaa ka dhacay albaabka hore hoteelka, halkaas oo dhaawac ay ka soo gaareen dad goobta ku sugnaa ay u badnaayeen wariyaal goobta yimid qaraxa koobaad kadib. saad arkayso albaabka hore hoteelka waa meesha burburka xoogan uu soo gaaray, isla markaana qarax uu ka dhacay kadibna ay ka arkayso waa albaabka hore hoteelka Dayax oo burburka xoogan uu soo gaaray kadib markii qaraxa koobaad uu ka dhacay. waxaana ilaa hadda la ogeyn khasaaraha ka dhashay qaraxan iyo qaraxa dambe iyo isrisaaseynta ka dhacaysa gudaha hoteelka. xogayaha laanta Muqdisho ururka Bisha Cas Maxamed Cabdi Faarax Asir oo aan kula kulmay albaabka hore hoteelka Dayax ayaa wax ka weydiinay bal khasaaraha ilaa hadda ay arkeen halkan yimid. culays fara badan ka dhacay meesha. annagoo kaalinteennii un baan qaadanaynay ahayd gargaarka degdega inaan ku sinno dadka caawinno wixii aan caawin karno, geyno isbitaallada ku shaqada leh daweynta. waana qaadanay kaalinteennii. ummad kaloo Soomaaliyeedna wayna la qaadanaysay. ambalaasyo fara badan aan garab ordaayay.
annaguna kuwaas gargaarayaashaan ka mid ahayn wixii kaalinteenna la gudboonana waa qaadanay dad badan dhaawaca waa qaadanay kuwa dhinta xataa waa qaadanay arrintuna maaragtay insha allahu tacaala ilaa hadda kolley statiskada weli kuma sheegi karo waa maaragtay la diyaarinayaa markii aan helna riboodkeenna aan si waafiya u bixin doonno insha allahu tacaala annagoo marsiin doonno meelaha ku shaqada leh insha allah magacaygu waa maxamed xuseen oo meeshaan goob ganacsi ku lahay goobtii ganacsiga sidaa ujeedin oo burburtay waa meeshaan taagannahay sidaa ujeedid ugu muuqata waa in mid burburto dhulka ku jirto wiilkii oo meesha aan iga shaqaynayn ilaa ay hadda nolol iyo geeri laguma hayo inuu ku jiro hadda lii sheegay haddaan bal eegi rabaa meeshayda meeshaan gadaal oo ku jiraa burburkaan noo muuqanayo oo ku jiraa marka wallaahi meeshaan musiibaa ka dhacday wadaadka igu dhigan gabadhiisii xaaskiisii iyo wiilkiisii yaraay ayaa meesha ku dhintay allah u naxariisto waxa kale taa sheegi karna ma jirto anu waa aqaan dariskayga ahay wiilkii hadda iga jira maslaxa allaha inuu nool yahay inuu dhaawac yahay in kaleeto lama sheegi karo kuwa wiilasha kaleeto dariskayga maqaayadana waa ku dhinteen halkan waxay ahayd maqaaxi ku taalla albaabka hore hotelka dayax waana meesha qaraxa koobaad uu ka dhacay hotelka qaraxa koobaad lala beegsaday guud ahaan dadka halkan ku jiray waa ay ku dumeen waxaana hadda laga soo saarayaa meydadkii shaqaalihii ku sugnaa maqaaxida gudaheeda goobta dadku hadda ay taagan yihiin oo gaariga hortiisa ah 4 meyd taal oo ah dadkii shaqaalaha ka shaqeynaya maqaaxida waxaana hadda lagu soo saaray gaadiidka cagaf-cagafka ee goobta soo gaaray qaybta dambe hotelka aan tagay waxaan arkay 4 ka tirsan al-shabaab oo saraakiisha amniga ay sheeganahay ragga oo meedadkooda hadda halkaas ay yaalaan hotelkan dayax wuxuu ku yaal degmada Waaberi wuxuuna ku dhagan wadada mashquulka badan ee Makka al-Mukarrama oo saaka weerarkan ay ku ekeeyeen koox ka tirsan al-shabaab Cabdulqaadir